حالدود أو أتكلم هرتي كرت إسفهم واجا ليش مركا أديجي حاس كاجدين لحية لحالدود هذا بقى أنت فضل رجع يدوم مركا ما عن قوة سطلي عذا مركي نلش وداجا يعني وحاجري كرا إن أدحشوا حاس دري عدا هذا كدول ولي بقى سوق دوين مركي تماد واحد يتعشى واحد يتعشى أنت بدلنا عاد إسفهم ويسان مركا نلش ولا قاضي إنسان هذا بني حالدود بني جاكوها يا كو حاسكاga baro rag badan ayaa jira hadii erigaas ay maqlaan la yaabayaan 8 sano qabe iyo 9 sano qabe iyo 10 sano xaaskayga hadiyo ilma iyo dhashay iyo saaxiib baa ayan 2 sano iyo waxay guday waxay gashaan aqaana ma jirto xaaskaaga ugu horeen baro dumarka inta badan uma sheegaan ragga wax walba ay u baahan yihiin inta badan uma sheegaan wax walba calooshada ku jira horaa loo yiri sir naageed laga ma gaaro marka ogow dumarka midda ugu liidata iyo midda ugu sareysay aakhirka inta badan wax way qarsadaan oo ma sheegtaan waxa la rabaa xaaskaaga inaad barato maxay jecesha maxay necebtahay dabeecaddeeda waa sidee xadkeeda intuu ka egyahay iyo sheekooyin kale waa inaad kala ogaataa marka ugu horeen xaaskaaga baro qodobka labaad xaaskaaga waa inaad ugu sheekaysaa naftaada muxuu markaa imaana islaamla anigu waxaan jeclahay sidaan iyo sidaan anigu sidaan waa necbahay anigu sidaan waa ka xanaaqa anigu sidaan waa ku farxaa anigu filimkaan aan jeclahay inaan fiirsado aniga noocan aan jeclahay waa inaad naftaada ugu sheekaysaa wax walba naftaada khaas ku ah ugu sheekay si ay isaga ilaaliso saddex raadi meelaha aad markaa wadaagi kartaan tusaale waxay jeceshahay inay daawato aflaanta Bollywoodka adiguna waa jeceshahay isma ogadiin waa inaad is ogaataan horta kow meelaha aad ka simantihiin waxay jeceshahay dalxiiska adiguna waa jeceshahay waa inaad ogaataa meelaha ka simantihiin waa inaad la wadaagtaa meesha aad jeceshahay iyo meesha iyada ay rabto kadib waxay kuu sheegaysaa inaad tan ka wada simantihiin tan aad ku kala duwan tihiin marka waa inaad wadaagtaan ama aad la wadaagtaa waxa ka simantihiin waa dhaba waxaan ka simannahay macaani hagaag haye qodobka muxuu yahay dood adag gala markaan ku dhahayo in la doodo la dagaalamo ma ahan waa inaad gabadha aad ka dhaadhicin kartaa inaad la doodo adigoo ka xanaajinayn markay doodda ay gaarto heer xanaaqa waa inaad arrinta aad qaboojiso oo aad ka dhigtaan iska caadiya si ay u dareento inaad la doodi karto ayadoona xanaaqin iyaduna aysan xanaaqin oodana aysan jirin doodda maxay tahay waxba isku fahmi weysaan nin waxaan waa sidaan anigu sidaan ila tahay sidaan saxan iyo sheekooyin kale ku dooda laakiin xanaaqi aysan gaarin doodda waxa markaa keenaya ama ay keenaysaa in islaamkiina uu sii wanaagsanaado maadaama waxa adigu aad damacsan tahay ama aan kula wanaagsanayn ay fahmi doonto marka doodda markaa way wanaagsantahay haddaysan noqonin mid markaa laga xanaaqayo ama mid markaa dhibaato keenaysa ama qalbiga saameyn ku yeelanaysa waa tahay qodobka xiga muxuu yahay markaa doodaan waxaa ku xiga waa inaad inta badan yeelataan cad cagaaran waa in ay ogaan kartaa waxa adigu aad inta badan neceb tahay tusaale in laga sheekeeyo ma jeclid hooyada oo geeriyootay in wax laga sheego ama wax xumaataa ama waxay ahayd in laga sheekeeyo ma jeclid tusaale arin hore kugu dhacay in lagu soo xasuusiyo ma jeclid taariikhna soo martay ninkii noocaas ah intii dib u dhaho kale qalbiga dhaawac soo gaaray waa in xad aad ka yeelataan kaasoo ah inaysan xadkaaga soo gudbi karin ilaa heer idan sidoo kale waa inaad u yeelataa xad aadan adigu gudbi karin qofka nolol soo mari karaa farxad iyo murugaba aadan xadka gudbi wana kala yeelataa marka qad cagaaran oo idin dhaxeeyo wax walba ma ahan inay wadaan wax iska sheegaan iska socaa maamulka ama miisaaniyada nolosha waa inay idinka dhaxaysaa xisaabtan sanadkan maxaan uga bixi karaa bishaan maxaan uga bixi karaa maxaa inoo hari kara maxaa inoo wanaagsan maxaa mustaqbal inoo ah waa inay yeelataan maamul iyo miisaaniyad